Asalaamu calaykum dhalinyaro, waa idin salaamay. Soo dhawaada waa Macalin Maxamuud. Casharkan waxaynu ku qaadanay 10kan ereyga oo saaran. Ereyga koowaad cling waa ku dhaganaan. Weliba ku dhaganaan bas maahane qofku wax intuu ku dhago uu qabsado and then uu si tightly u si haysta la yiraahdaa cling. Yes. The child clung to her mother's hand. Cling past tense-geedu wuxuu noqonayaa clang oo meesha ayda ah unbaa you isu bedelayso. Yes, yani anigu wuxuu ku dhagnaa ama wuxuu dhab siistay gacanta hooyadii. Clumsy qofku waa markuu jareenayo, dabacsanaanayo, koobka ridayo, wax jibinayo ama cabsi darteed ha u rido ama walwal haysto ama farxad oo ka tambadata. Clumsy taasaa la yiraahdaa. Yes, clumsy hands waa gacmo jareenayo oo fudfudinay wax ridaan. Clutch waxay isku macno yihiin cling. Iyadana waa ku dhaganaan weliba dhab ah qofkii inuu xoog wax u qabsado. Coherence waxaa la yiraahdaa qofkii inuu logical ahaado, yani inuu fikir tolmoon u leeyimaado. Yes, for example, his argument lacked coherence. Doodiis waxay la-eed logical reasoning, yani wax xaqiiq ama caqliyan kuma aysan salaysnayn. Coherence waxaa kaloo dhigi kartaa consistency, wax yani si toos isula xiriiro, waxba aanan ka badboodaynin, qaybo aanan ka maqnayn. Coherence waa la yiraahdaa. Yes. waxay isku macno noqonayaan opposite-keedu wuxuu noqonayaa incoherence oo prefix in unbaa ka hormarinaysaa. Combat waa dagaal. Yes, dagaal waxaa kaloo la yiraahdaa fight, waxaa kaloo la yiraahdaa battle. Yes, battle, fight, combat dhammaantood waa isku macno. Yes, the army is trained for combat in difficult areas. ciidanku wuxuu u tababaran yahay inuu ka qayb galo dagaalo ka dhaca meelaha adag. Ereyga lixaad commemorate waa xusid. qof haliyey ahaa taariikhda wax weyn kaga tagay ayaa la yiraahdaa xusidiisa waxaa la yiraahdaa commemorate. For example, we commemorate waxaynu xuseynaa those who lost their lives in the war. kuwii naftooda ku ay dagaalka. Commemorate. Remember amal. Honor. Celebrate those people who made history ama wax fiican waddanka kusoo gudbiyey. Ereyga toddobaad commit waa samayn. Yes, waxa kan inaad samaysid, ka qayb qaadatid, adigu fashid. For example, if you commit to regular study, haddii aad samaysid regular study, waxbarasho ama diyaarin joogto ah, your English will improve. Englishkaadu wuu wanaagsanaanayaa. Ama she committed the crime but later regretted it. She committed the crime, dembigaas ama gabadfalkaas iyadaa samaysa, but later regretted it, deedna way ka shalaysa. Regret baa la yiraahdaa shalayto. Ereyga sideedaad complication waxaa la yiraahdaa xaalad caafimaad oo qofkan haysay inay ka sii darto ama wax xaaladaas kaga sii darayo. Yes, for example, qofkan maybe IO baa hays, intestinal obstruction ama caloosha xiranta. Hadhowti dambe xaalad kale waxay kusii keentay dhibaato kala sii leh. For example, inay mindhicirada dilaacaan. Okay, qofka marka waxaan leenahay mindhicirada inay dilaacaan waxay ahayd complication ka yimaaday alool xiran. marka waa inay xaaladii uu ku jiray wax sii haleynayo, sii dhibaateynayo, kaga sii daraa la yiraahdaa complication. aad iyo aad. Ereyga sagaalaad bat waxaa la yiraahdaa noun ahaan marka loo isticmaalo xagga dambe qoriga, qaybta dambe ee qoriga ee adag ee qof markii lagu dhufto yani dhibaatada u geysanaysa la yiraahdaa bat. Ereyga tobanaad ee u dambeeyo frown waxaa la yiraahdaa qofka markuu wajiga ku kaduudo. qofka markuu faraxsan yahana wuxuu ku sameeyaa green, wajigu ku dhol cadeeya green ama smile green waa isku macno. qof markuu xanaaqsan yahayna wajigu ku kaduuda. Yes, kaduudkaas qofka inuu xanaaq ku tusinayo taaba waxaa la yiraahdaa frown. Yes, for example, his teacher frowns on cheating. macalinkiis markuu arko qofka inuu dadka inay cheating sameynayaan wajigu kaduudaa waa si uu xanaaq u tusiyo. Ashirka intaas ayuu ka yahay. Thank you for listening. God bless you and have a beautiful day. Bye bye.